kow ugu horeyn ilaahay baa mahad iska leh na soo gaarsiiyey bishii ramadaan ilaaha na soo gaarsiiyey ilaahay baa mahad dhammaanteed iska leh hadduu na soo gaarsiiyey waxaas mudan inaan isweydiinno bishii 10 waa tagtay 10kii hore waa tagtay 10kii dambena waa bilaabatay waxa isweydiin le markaa inaan isxisaabinno sida ilaahayna amray subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah waltandur nafsu maa qadamat liqad wattaquu llaha ina allaha khabiiru bima tacmaluun ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu le mu'miniino alla ka baqa naf walbaana ha fiirido waxay hormarsatay sidaas darteedu cumar ibnu khadaab u dhihi jiray xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu war isxisaabiya intaan laynin xisaabin qofku waa inuu naftiisa xisaabiya intaan ilaahay xisaabin acmaashiina miisaama intaan laynin miisaaminoo ilaahay la hortegin waxay tahay su-aasha mudan marka qof kastoo naga mida inaan isweydiinno 10kii hore maxaan ku samayno qofkay u soo baxdo inuu wanaag ku sameeyey ilaahay aan u toobad keennay waajibaadkii aan u istaagnay muxaramaadkii aan iska ilaalinnay laba shaya laga rabaa ilaahay inuu ku shukriyo uuna sii daa'imo qofkii 10kii hore seegseeg ay ka ahayd ama dayacay waxaa mudan inta naftu ku jirta inuu ka gaaro oo qaladkii horena ilaahay uga toobad keeno uuna inta dambe ka gaaro oo iscaymiyo hadda bisha maalmo ka hor waa soo dhoweynayno hadda 10aa tagtay 10na waa bilaabatay hadday bilaabatay 10kuna sidaasoo kale u dhammaan 10kii ugu dambeeyaa imanayanu sidoo kale u dhammaan waa in qof kasta oo naga mida uu soo xasuusto xadiidkii imaam axmed iyo qayrkiisa ay wariyeen oo malakul jibriil uu nabiga ku yidhi sala allahu calayh wasalam qof alla qofka bisha ramadaan soo gaara oo aan loogu dembi dhaafin oo naarta gala naarta allaha ku fogeeyo aamiin dheh uu yihi markaasaan uu yidhi aamiin qof kasta oo muumin ah waa in xadiidkaasu meel ka taabto ilaa mu'miniinta maxaa lagu yaqaan waxaa lagu yaqaan waladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun mu'miniinta waxaa lagu yaqaanu ilaahay yidhi waa dadka daacadana sameeya haddana cabsanaya oo isle amaad khatar ku jirtaa amaan wax lagaa aqbalin ama xumaantaadu ka badataa wanaaggaaga qof kastoo naga mida marka waa inuu is yidhaah bishii waa tanoo 10 tagtay adiga amaad ka mid noqotaa kuwa bishu ku dhammaato ayagoon loo dembi dhaafin oo naarta gala oo ilaahay naarta ku fogeeyo oo habaarkii malakul jibriil iyo nebi maxamed ay ku dhaceen qof kastoo naga mida waa inuu taas is yidhaahdo oo dareenkaas qaado qofku markuu cabsadu dheelmadaa haddaadanba cabsan oo welwelku hayn oo aadan isdhihin amaa bishu dhammaata adoon lagu dembi dhaafin amuu xadiidku qofkuu ku rumoobay adiga noqdaa amay dhacdaa wabada lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaa ilaahay markay hortageen u soo muuqday waxaysanba xisaabta ku darsan adoo isla roona ama xaaladdu lidataa qof kastoo naga mida taas ayaa ku habboon inuu meel wax usii dhigo oo u diyaargaroobo kelimadda labaad waxay tahay oon raba inaan idhaahdo nicamka ilaahayna siiyey qiimaha badan waa badan yihiin laakiin waxaa ka mid ah cumriga waqtiga qiimihiisa waxaa ku tusaya ilaahay marar badanuu ku dhaartaa waqtiga walleyli idaa yakshaa wاnnahaari idaa tajalla wاduxaa wa kulli waa wada waqti si guuda alla ugu dhaartayba mar inta ku dhaartay maalin oo mar habeen ku dhaartay oo mar barqadii ku dhaartay zamankii oo dhammaa ilaahay ku dhaartay waalcasri ina alinsaana lafii khusr ilaahay weynaa wuxuu hi casrigan ku dhaaranaa zamankan ku dhaaranaa ee insaanka dhammaan khasaaray ku sugan yihin shay ilaahay ku dhaartay haddaad aragto waa shay qiimo weyn leh
oo la doonayo addoommadu inay ku baraarugaan qiimahaas oo ay dib u fiiriyaan waqtiga qiimihiisa qofka fahma ee ka faa'iidaysta ee ogaada cumriga dhama lagu sheegaya waa daqiiqadahaas ee wax ku qabsada ee daaca ilaahay ku camira ee xumaanta iska ilaaliya ee ku qabsada imaa cibaado wa imaa maslaxa adduun oo xalaal ah wuu mahdiyaa waxaana lagu yidhaahdaa berri qiyaame kuluu washrabuu hanii'an bimaa aslabtum fi اlayaami alkhaaliya maalinkaasuu qiimaha gartaa marka la yidhaha iska cuna jannada cuna caba waxaadna ku cunaydaan oo ku cabaydaan maalmihii tegayo adduunyada waxaad hormarideen waqtigii aad ka faa'iidaysateen wixii maalmihii tegay dhexdooda aad ku samaydeen oo iimaankii iyo camalkii saalixa ahaa maanta ku cunoo ku caba markaasuu fahmaya waqtiga qiimihiisi taas cagsigeed waxay ku dhacaydaa dadka nasiib darradu ku dhacday ee waqtiga aan ka faa'iidaysan ee aan waqtiga ku camirin daaco ilaahay ee macaasi ku camiray ama se qaflo iyo cayaar ku camiray isagoo iska faraka cayaaraya iska riwaayadaynaya iska kaftamaya waqtigu ku dhammaaday intaan qabriga la gelinoo qiimaha fahmaya wuxuu waqtiga qiimihiisa fahmayaa mowtku markuu ku soo xaadiro xataa idaa jaa axadahum اlmowt qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fii ma tarakt ilaah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala markii mowtku u yimaado qof ka mida dadkii aan ilaahay si dhaba u caabudin marka waqti mowtku u yimaado uu iska calacalaa markaasuu ha rabbiyow iceli ilaahayow iceli oo adduunyada waqti yar iyo fursad yar isii waxaa dhici karto xaqiiqo ah inaan camal wanaagsan samaynayo waqtigii aan soo dayacay beddelkeeda lacallii acmalu saalixan fii ma tarakt laakiin jawaabtii maxay noqotaa fursad ma la siiyaa ma la yidhaha 3 maalin ku soo diyaargarow maya kalla ilaah wuxuu yidhi kallaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa jawaabtu waxay noqotaa ka joog waa radis kelimad ah taasu ma dhacaydo wey ha ku fakeri waa kelimad qofku iskaga hadlay kallaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzakh adduunye iyo idinka teeda inin dhexeeya way kaaga dhammaatay adduunya waqtigaasuu fahmaya wuxuu fahmayaa qofku marka naarta lagu tuuro wahum yastariquuna fiiha rabbana akhrijnaa nacmal saalixan hayra aladii kunaa nacmal ilaah wuxuu noo sheegay subxaana markay jahannamo lagu tuuro dadkii aan adduunka waqtiga ka faa'iidaysan daaco ilaahay aan ku camirin ayaa iska calacali doona markaasay dhihi doonaan rabbanaa akhrijnaa minha rabbanaa akhrijnaa rabbiyow naga bixi naarta nacmal saalixan hayra aladii kunaa nacmal waxaan samaynaynaa wixii aan samayn jirnay waxaan ahaynoo camal saalixa ah laakiin maxaa lagu leeyay ma la soo celinayaa adduunyo maya waxaa ilaah ku leeyahay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wa jaa'akum nadiir faduuquu famaa lidaalimiina min nasiir waxaa lagu leeyahay ma waanaan idin siin cumri qofkii waansamaya ku waana qaato miyaan lagu siin ahlucilmiga gabel ay yidhahdeen 15 sano wey waa qaangaarka qaar ay yidhahdeen waa 18 sano qaar waxay yidhahdeen 40 sano waa 40 sano ahlucilmiga gabel ay yidhahdeen waa 60 sano 60ka sanana xadiiska bukhaarigaba ku soo arooray qof duqoobay ee ilaahay dib u dhigay 60 sano gaaray ilahay agtiisa cudurdaar kama helayo nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam acdara allahu ila mri'in akhara ajalahu xataa balaqa 60 sana ilaahay waa cudurdaar tiray qof ilaah dib u dhigay ilaa uu 60 sano gaaray wax cudurdaara ilahay agtiisa kama helayo soo uma jeedid marka jawaabta ku sugaydaa waxay tahay cumri qofkii waansamayaa ku waansama miyaan lagu siin mideeda kale nadiir soo kuma imaan waa nabi maxamed sala allahu calayh wasalam
mid kuu dige nabigii qofkan aragna wuxuu arkay warahatul anbiyaa alculamaa warahatul anbiyaa miyaan lagu digin aayaadka alle miyaan lagu dul aqrin miyaan lagu siin fursad markaasaa ilaah leeyahay naarta dhedhamiye daalimiinta wax gargaara oo u sugnaaday lama arkeen cid maanta naar kaa difaacda ma jirto naar waxaa kaa difaaci lahaa waqtigaagood ka faa'iidaysato cumrigaagood cibaado ku camirto taasna adaa dayacay fursad dambena ma jirto waxa miisaanku yahay waa acmaasha saalixada ah waqtigaas aad ku samayday iyo acmaashii xun labadaasa la isku miisaamaya haddii daaco aad ku badiday waa qofkaas qofka liibaanaya ee aad ku badiday tawxiid ee aad ku badiday salaad iyo soon sadaqo iyo dikri salli nebi moxamed sala allahu calayh wasalam tafakur iyo ictikaaf masjid u soo socee dhex fadhi taas markaad ku badiday qofkaasaa liismaanayo faman haqulat mawaasiinu fa ulaa'ika hum muflixuun ilaah wuxuu leeyahay qofka marka aakhiro la tago wixii uu soo sameeyey wanaagsanaa iyo waxa xun marka la ysgarab dhigo wanaagiisu dadku bato dadkaasaa liibaanay waa dadka la leeyahay cunuu caba maalmihii tegayaad ka faa'iidaysateen wixii aad soo shaqaydeen ku cuno ku caba waman khafad mawaasiinuh fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun laakiin dadka ay fududaato acmaashoodii saalixada aheed oo xumaantu ay badato oo qafladu didatay iska daa janno inay helaan iska daa guryo dahab iyo fida laga dhisay in la dejiyo lafahoodaa naaru cunayda ho khasaaraya lafihiiyaa naartu cunayda jahannabay ku waarayaan talfaxu wujuhum naar wahum fiiha kaalixuun ilaah wuxuu yidhi wejigooda waxaa gubayda naarta markay faruuryaha feenato ayay ilka caddaynayaan ilaa ilkihii wax qariya lama arko faruuryihii qari lahaa naaraa cuntay meeshaasay ilka caddaynayaan markaasay iska calaacalayaan way iska calaacalayaan rabbana akhrijnaa minha fain cudnaa fa innaa aalimuun way iska calaacalayaan rabbiyow naga bixi naarta haddaan u laabanno xumaantii iyo dayacaadii aan dayacnay fursaddii iyo waqtigii annagaa daalimiin ilaahayow hal fursadoo dambe dib noo sii rabbana akhrijnaa minha fain cudnaa fa innaa aalimuun maxaa lagu leeyay waqti iyo fursad ma la siinaa maya ikhsaw fiiha walaa tukallimuna lagu leeyay waxaa lagu leeyahay naarta ku fogaada ikhsa waxaa la yidhaha laba macnaa loo isticmaalaa fogow waxaa kaloo loo isticmaalaa dulli ha kugu dhaco dullow dulli iyo fogaansho aad naar ku fogaataan aad leedihin aa laleeyahy fursadda idinkaa dayacay wixii ugu qiimaha badnaayaad dayacdeenoo waqtigii hayla hadlina ilah leey maxaa yeelay innahu kaana fariiqu min cibaadii yaquuluuna rabbanaa aamanaa faqfir lanaa warxamna wa anta khayru raaximiin ilaah wuxuu yidhi qayb addoommadayda ka mid ah ayaa waxay dhaheen ilaah waa ku rumayn ilaahayow noo dembi dhaaf ilaahow noo naxariiso ilaahu inta naxariisato adaa u khayr badan qaybaa waqtigoodiioo dhan cibaado iyo duco iyo tadaruc iyo ilaahay inay isku duleeyaan ku camiray fatakadtumum sakhriin kuwaasaad ku jeesjeesi jirteen idinku alla ka baq marka lagu yidhaah sheikh midkaan mawaadan ujeeda waryaa alla ka baq waryaa sheikh warkiisa dhegeyso waa iska cayaara sheikh midkaanu ma ujeeda sida tinta ugu xihanta waraada maxay madaxa sheikh midkaan fiiri wallaahi waa qaldayin sheikh waa iska cayaara jees-jeestaad ka dhigateen waa ku jees-jeesteen soo ma jeedi fataktum xataa ansookum dikri wa kuntum minhum tadxakuun wacdiga waanada wax sheega marka la wado idinku hoosa iska qunjaydeen waa ku jees-jeesaydeen waa ku qoslaydeen ilaahii weynaa inaad xustaan iyo cabsiisba iyagaa idin halmaamiyey kuwa rabbi caabudayaadba ku mashquusheen inii jazaytum alyawma bimaa sabaruu annahum hum lfaa'izuun ilaah wuxuu leeyahay kuwii daacada ilaahay waqtigooda ku camiray ee soo caabuday maantaan abaalmariye waa kaasa cuna caba raaxaysta shaqa inima taalle maalmihii tegey daacadii aad ku camirteenna ku caba saasaa la leeyahy ayagaana liibaanay sow ma jeedi
ilaahi weyna markaas ayaga weydiina fiiri dadkii waqtiga dayacay alla weydiina qaala kam labistu cadada siniin waxay la leeyahay meeqaad adduunka soo jeedeen dhulka meeqaad joogteen qaala kam labistum fi lardi cadada siniin maxay leeyihin labisnaa yowman aw bacda yowm waxay leeyihiin hal maalinaan joognay dhulka ama maalin barkiisaan joogno hal maalin waqtigii maanta adduunka la tirada badnaa ee turubka markuu cayaara dubnada markuu cayaara marka uu mobaylkan ku mashquulsan yahay oo la yidhaha warheedhe maxaad waxaan waqtiga u gelina walaa waqtigan ku dhammayna waqtigii la dheeraa aakhira marka la tago maalin ama maalin barkiisu la noqonayo maalinay leeyihin labisnaa yowman aw bacda yowmin markaasay leeyihiin fas'al ilcaadiin ilaahayow annagu tala ma haynee waa wareersan nahayo dad naaru cuntaan nahaye bal dadka wax xisaabiyo weydii inay wax naga qaldan yihin waa dhacda naga maalinay noola egta adduunyada dhan fiiri waa wax daacada alle aad ku safri weyday oo aad ilaali weyday ood isceli weyday waa wax berri maalin oo kale kula noqon doono ama maalin barkiisa sowma jeedin maxaa lagu leeyahay markaas labisnaa yowman aw bacda yowmin fas'al caadin qaala in labistum ilaa qaliilan low annakum kuntum taclamuun ilaah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala adduunyada wax badan ma adnaan jooginoo kuma adnaan nagaan haddaad ogaalahaydeen xataa qadarkaad adduunyada joogteen inuu ka dheeraa maalin iyo maalin barkiis lawuu ka dheeraa dadka lala hadla waa dad mukallafiinoo fursad la siiyey haddaad ogaalahaydeen marka loo fiiriyo waxa idinka dambeeya iyo naar intaad ku jiraydaan in yar uu noqola in yaruu noqola ya in yar ayuu noqola waxaa kuu taalla in lagu yidhaahdo afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabasa wa annakum ilayna laa turjacuun ma waxaad u malaydeen inaan idin abuurnay cayaar iska mashquul iska kaftan iska boodbood iska qaflo iska hurud dubnad turub cayaar laadhuu waxa way internet facebook ma saas inaan idin abuurnay inlata yaa saas miyaad u malaynaydeen afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabasa wa annakum ilayna laa turjacuun inaan laydiin soo xaggayga laydiin soo celinayn oonan idinla xisaabtami doonin miyaad u malaydeen ilaah yaa maya waa idinkana marka waxay tahay qofka dakiga ah ee caqliga le yuu yahay alkayisu man daana nafsa wa camila limaa bacda almowt waxaa la yidhaha caaqilka waa qofka naftiisa xisaabiya ee u shaqeeya mowdka waxa ka dambeeya ee farxi doona berri markay shanlaayaan kuwa waqtiga dayaca laakiin alcaajis yuu yahay caajiska doqonka yuu yahay man atbaca nafsahu hawaaha wa tamanaa cala allah waa qofka naftiisa rabitaanka dabadhiga markay rabto seexo markay rabto facebook markay rabto cayaar markay rabto banooni marba naftu waxay rabto kadibna is yidhahda kolliba qayra ilahay agtiisa kuu yaala ilaahay waa kafuuru raxiim marna kuma soo dhacdo ilaahay waa shadiid ciqaab marna kuma soo dhacdo ilahay waa kafuur raxiim kaliya u taala soo uma jeedin doqon qofkaasaa la yidhaah qofkaasaa la yidhaah waxay tahay kelimadda ugu dambaydoon ku soo qatimi waqtiga maanta waxa ummadda u dhammeeyey waqtigooda baabi'iyey waxa ugu badan maxay yihiin waa inay isweydiinno qofka hadduusan cudurkaba ogeyn caafimaad inuu raadiyaa ma suurtagala waxa ugu weyn ee maanta waqtiga baaba'shay muxuu yihi waa mobaylka weyn waa jawaalka aan gacanta ku sidano jeebabka noogu jira waa kaas ee dadka gabal ay ku qaataan saacado badan yaa saacado badan ay ku qaateen oo dadkii weliba laba qaybood ay yihiin qaar iska daa waa dad xumaan waqtigooda u geliyey oo xumaan ka daawado xumaan ka raadiyey dad waxaa jira iyagu aan xumaan ka raadin laakiin waqtigoodii uu laqay oo aan dareen lahayn oy dhici karto waxyaala iska cadiya inay maanta horan ka fiirinayaan idaacad heble dhegayso war hebel aqri xagga maxaa la yidhi xagga aqri baraha bulshada xaa la soo dhigay intaas waqtigoodii ku dhammaaday horta hal shay ogow qofkii waqtigiisii iyo xumaan isku daray waa laba dembi
waqtiga aad ku dhamayday ilaahay hortiisa waa lagu weydiin oo xadiidkii tirmidhi iyo qeyrkiis ay wariyeen nabi maxamed wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam لا تزول قدم عبد يوم القيامة عند ربي حتى يسأل عن 4 وفي رواية عن 5 قفك إلهي مالك هرتقى قفك است إلهي هرتقى أيضا ترجمان أدحين إلهي با حسابين إلى أفر الرموت لو يدينا ماشا كمان دقائق عن عمري فيما أفناه عمري حاطكم بحب دقيقة كستوى الويدين عمري قالوا شيئا ودقيقة لها سيركا والويدين إلهي marka la hortago Facebook-an ilaahay waqtigii galishay ma dhigi karna hadaan dhigi karin maanta aan iska dayn oo waqtiga yagaan ka ilaashan aan maanta ka ilaashan oo naxariisto naftayada waxaan bari ma awoodno silsiladaha jahannama in la ku jiido laakiin maanta waa awoodna inaan iska dayna ka waa awoodna maanta shayga labaad oo la weydiin wa an shababihi fima ablah dhalinyaranimadi xoogi fahamkii badna aqligii dhagihii indhihii xaad ku baabi'id waa su-aasha saddexaad wa can jasadii fiima ablaa xooggii ilaahay ku siiye xaad ku bixid su-aasha afraad wa can maalihi min ayna iktasaba wa fiima anfaqa shilin hanti wixii ku soo galay halkaad ka keentay yaa halkaad ka keentay halkaad ku bixid inta lacag ka soo bixin oo mobayl ku shuban intaran ku shubanay xaaraan ku daawanay ama maala yacni ku dhammaynay su-aalana sugay tan ugu dambaydana waa cilmigii iyo waanadii iyo wacdigii aad maqashay maxaad kaga dhaqanta ilaa intaas qofka la weydiiye cagaha dhulka kama qaadi doono qofkii marka xumaan ku daawaday waqtigii waa khasaaro waa su-aal u taalla tan labaadna nabigeenna wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam aakhiro dadaa jira la imaanaya daacaad waaweyn oo ilaahay boor la jafay ka dhigayo kadibna naarta ku tuuray dadkaasaa nabiga la weydiiyey maxay yihiin rasuulka ilaahay dadka noocaas wuxuuna ugu jawaabay waa qowmin idaa khalow bimaxaarim illaahi intahakuuha waa dad markay wixii alla xaaraam ka dhigay la kali noqdaan oo keligood meel yihiin aan xaaraamta ka dhowrsan u fiirsada dad waxaa jira masaajidda jooga daacaadka fadhiya duruusta fadhiya khudbooyinka iyo wacdiga iyo waanada dhegaysana tukanaya soomaya sadaqada bixina laakiin qolka mugdiga iyo meelaha dariiqa markay tagaan xaaraanta inay daawadaan aan iska celin waana dadka ilaahay boorka ka dhiga daacadooda ee naarta alla ku tuura labadaas waxay haysataa waa qofkii xumaan ku dhameeyey qofkii aan asagu xumaan ku dhammayn ee waxa jira maalayacni ku dhammayna Facebook waxaasa la soo dhigay balkan aqri hebla waxaasuu qoray hebela waxaas yidhi hebelaa u jawaabay intaas ku dhameeyey waqtigii halkaad geyday waqtigii waa lagu weydiine waqtigii su-aala ka imaana halkaad geyn mideeda kale war intaan aakhire la gaarin bahalkaanu adduunya la-aanu dadka dhigay moogti sheekha imaamka masaajidkan khadiibkana nooga ahaa jira allaha soo nabad aruuriyo sheekh yuusuf wuxuu ii sheegay 3 caruur oo waxaan wax ka quraan saaruy markay yaryaraayeena hooyooyinku ku bilaabeen hooyooyinka gabal damiir male unugu yu kugu qayliyeen kugu booyin kaasay u shideen mobile fiirso warkada habarine balade kaasina waa iskaga aamusine ayagii la qabsan aqli male dareen male haddaad tira kaalay kula hadlimo dhagahaas ugu jiree maalkaasuu fiiri kara bis wax kalena ma afyaqaan war hebel eber waa dhici karta cunto haddii la konayo wuxuu laqo bis waa soconaa kanuu fiirina musqul markuu badana waa gela wax kale male caqli male dareen male dadnimo male adduun iyo aakhir midna lama bari karo waa dhagax banu aadan muuqaalkiisna waa leeyi qur-aanka anaa wax uga soo akriyo war wadaadadii shalay soo kuwii ka digay sawdigii ka diiday maxaad hadda ugu yeeraysaa yaa wadaadadii qur-aan ku akriye baaran ku akrinay waa banu aadan muuqaalkiis waana masaw boombale ma maqasho waa boombaloo kale soo ma jeed waxaad aragteen reero dhan oo ku kala tegey bahalkaas dad badan oo dhallinyaro ah oo waxbarashada uga haray
sheekhayna sheekh axmed wuxuu ii sheegay nin shiiqahaa ii sheegay midaa ii yimid oo wuxuu yidhi caatada naftu waa dhibayda markaasuu yidhi war waa gubtayay badbaadi markaasaan waxaan mooday yidhi siduu salaatuleyl u tukaay oo maanta u soo manaa inuu is yidhi ama naftu kaa dhacda markaasaan idhiyuu yidhi xoogaa salaatuleylka habeenka haddaad qayb tukato qaybta kale iska xoogaa seexo maalmaha gabalna afur markaasuu yidhi war ninkaas sheegayda maahi war ninkaas aniga maahi ee ibadbaadi waa dhintay markaasaan idhi yidhi maxaad tahay adugu wuxuu yidhi baalkaasaan dhaladaasaan fiirinaya hu barqadiyaan soo kacaan fiiriya ama casirka saan u fiirinaayo wuxuu yidhi cashadii waa la keenin cunin ma karo haddaan mar gacanta leeda waa ilooba baalkaan la socda saan u agaallo awaabu iigu baryahu markaasaan dhaca casirkiiaan soo kaca haddana waa shida wuxuu yidhi wax ma cuno wax ma cabo ilaah ma caabudo war waa gubtaye i badbaadi markaasaan idhi yidhi hadda waaba fahantay cudurkaagiiye baalkan iska tuur dhaladan jejebi ilaahii weyna u toobadkeen ma awoodiyo ninkaad sheegayda ma nin noolaad ka hadlayda wy ninka aad ka hadlayda aniga maan mid kale wey nin jabi kara soo ma jeedi in badan oo dhallinyaradii ka mida intaasay qarka u saaran yihin mase is oga qofku xataa weli dareenaa jira intuu cudurkiisa ogi ya waa xira waa soo qaba haddana waa shida kaasuu leeyahay haddana waa dhiga laakiin waxaad ogaataa inta kaloo dhan qofku waa awoodaa laakiin naar inuu ku sabro ma awoodo wax aan la awoodinoo kale ma jiraan ma garad waxaa la rabaa dadka noocaasa ee u dhintay macnaheeda maahan in laga sabro waxaa la rabaa go-aan inaad leedahay oo ah sidiisa ma furayo mana fiirinayo ilaa waqti hebla waxaan ka hadlaynaa dad dhintaan la hadlayna qofkaan caadigaahu dee haddaad isceli karta adugu haba isbari naftaadana ha bari laakiin dadkan xataa bahalka ku tegey waxaa la rabaa kow qofku naftu waxay barata hal mar lagama jari karo xad in loo sameeyo oo tidhaahdo waqti hebel markaan waxbarashadayda dhammaysto aan shaqadayda dhammaysto hal saacaan siina halkii saac dadkii war kuu soo diray u jawaab wixii oo qofkii siyaasadaha iyo idaacadaha iyo la socda iska dhegdhegayso bal halkii saac markii la gaar saacadda u fiiri shid demi waktigiina daaca ilaahay ku camri aaniyan waktiga jiifka bataatan bahashidi laba ciladood nabigeenna suuban sal اlahu alay waslm xadiiska saxiixaynka waxaa ku sugan bacda alcishaa sheekada waa nibca sababtoo ah bacda alcishaa sheekada ah waxay keenee qofku inuu ku laylo kadibna salaadii subax iyo salaatuleylkii uu u soo kici waayo haddaad marka bacda alcisho shido waa kuu dhammaatay khalaas waa inaad aragtaa taasu inaysan marnaba la ogolayn agga iska dhig haddaad maaragtay naftii ka celi weydo ilaa baalkan waa balwad qofka balwadda bartaana ma joogi karo dad saalixiinahood la sheekaysata leedo waktigaas wax kalaa la gelshaa soo ma jeedid waalidiinta waxaa la rabaa caruurtoodu heerkaas noqotay in ay waktida ka buuxiyaan oo xataa waktiga wax kale loo waa inta u yeeraan ay u sheekeeyaan oy qayr uga sheekeeyaan oo ay seexiyaan oo ay ku hubsadaan oo ay ka qaadaan oo ka xareeyaan cadowgan aan waktiga caymsanno kelimadaydana intaasaan ku soo qatimin ilaahay weynaa asmaadiisa sifaadiisa waxaan weydiisaynaa ilaahay weynaa inuu nagu daro kuwa ramadaanka loogu dembi dhaafay ilaahow rabbiyo kuwa ramadaanka loogu dembi dhaafay ilaahu nagu dar ilaahu kuwa naarta laga xoreeyey nagu dar ilaahow kuwa aakhiro shan laaya ha nagu darin ilaahow kuwa adduunka wax fahmeen aakhiro shan laayin ilaahu kuwaas nagu dar ilaahow dadka adduunyada wax fahmeen aakhiro shan laayin nagu dar ilaahow kuwa aakhiro shan laaya ha nagu darin ilaahow beledka amin nooga dhig ilaahow fitanta naga ilaali ilaahow dagaalada iyo sharta naga badbaadi ilaahow amni aan kugu caabudno aan ku weydiisan ilaahow istiqraar aan ku weydiisan ilaahow fadligaaga noogu naxariiso ilaahow raxmadaada noogu naxariiso walaalayaal martida insha allah ha loo naxariisto waa walaalaheen waa muslimiin waa fuqaro waa muhaajiriin waa dad oo cadow soo cayriyey insha allah gacanta loo taago yaan laga kala tegin